Somaliland maxay muhiim ugu tahay Israa'iil. Somaliland waa gobol ka tirsan Soomaaliya, laakiin dadka halkaas ku nool waxay isku haystaan dawlad gaar ah. Laakiin xaqiiqada xiisaha leh ayaa waxay tahay wadamada dunida ku yaala ma aqoonsana Somaliland inay tahay wadan marka laga reebo Israa'iil. Somaliland waxay leedahay lacag u gaar ah, baasaboor u gaar ah iyo ciidamo nabad ilaalin ah. Waana wadan Muslim ah. Dadka ku noolna ku dhawaad waxay gaarayaan 6 milyan. Gobolkana Soomaali inteeda kale wuxuu ka go'ay 1991 kadib markay ku qaadeen dagaal xornimo doon ah janaalkii kaligii taliga ah ee Siyaad Barre. Laga soo bilaabo markaas ilaa hadda Somaliland ma jirto cid u aqoonsatay wadan madax banaan inay tahay. Somaliland waxay ku taalaa marinka hore ee gacanka cadan. Marinkaasna waxa adeegsada maraakiibta ganacsi ee laga leeyahay Yurub iyo Aasiya. Israa'iilna wadadan faa'iido ay ugu jirta sababtoo ah shidaalka carabta ay ka soo qaado ay halkan marsiisaa. Israa'iil hadda Somaliland waxay u aqoonsatay wadan madax banaan inuu yahay. Somaliland waxa laga doonayaa beddelka aqoonsiga in laga helo waliba faa'iido badan. Somaliland hadda waxa laga sugayaa Israa'iil inay wadankeeda ugu samayso saldhig military. Israa'iilna faa'iido ay ugu jirto halkaas waxay ka difaacanaysaa maraakiibteedii mareysay cadan iyo weerarada Yemen ee badda cas. Israa'iilna hadda waxay awood u yeelatay Yemen iyo wadamada u dhow kor inay kala socoto. waana goob istiraatiiji ah. Su'aasha taagan ayaa ah Somaliland miyay aqbalaysaa aqoonsiga Yuhuudda ay siisay.